koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warna dhegaysta waryaada waa un qaylisaane adigoo nacanaanan hortana salaam war idin salaami maayana dhegaysta war salaambaho ninka dhehayna dhegansiyoonay warnima noo dhehaya war dhegaysta oo dhugu yeesha waanada ninkuu idinla hadlayaaye maxamuud sabriye qarafaan allah u naxariista haddaan ka hor wuxuu yidhi warkaagu waa tumburyo ku dhukayso marka salaantaada ma rabee warkayga dheganso waa tumburyo ku dhukayo yeelina mayno haye waa idin salaamay dhegaysta hadda dadka qaylinaayo dalka joogi jirayow intii dibadda aadoo dawlada ajnabiyii diiwaan galsheenoo derajiya helhelay baa duullaan ku timide daafaca xaqiinna heeqash tubta dulmigaad berigoo dhan la haraahiraysa ma intaasow ahaay war dulmi maahana diyaas barada layska celiyuu ku yidhi dabka habee war dagoonka ganowdayuus bar hal diray hoobaad erti dalka ay dhidhisidee war kuwii dalka jooga hadday dumiyeen kuwii dibadda ka yimid yaa ka mudan horee dhahaa ee daljoog iyo dibadjoog way isku mide dalkayna wada leeyihiinoo ma kala maarantee waxaan aad uga xumaaday maanta weriyaha dhuusamareeb lagu xukumay oo la yidhi maxkamad milatariyaa xukuntay yaa maxkamad milatari hadday xukunta tii booliskuna waa u dhimanta heeday war isuma waalintan iska badiina weriye haddii la yidhi weriyaha haqdhoor masku artaana walkala isin tabarhay ahaytaanba mala ragaa war mahay sida weriyuhu weriyihii raadiyo kulmiyuu ahaa waana shacab maxaa ka quseeya maxkamad ciidan qof shacaba warweriyayaasha raadiyo kulmiye kuwa xamar joogo 24 saac warka daldalayaba lama xidhe maxaa kuwa dhuusamareeb laga rabaa aryaadhaha xiriga weriyaha ururadii saxaafadoo dhanaa cambaareeya cambaarna dawaa ka adag oo boomaataa layska marshaa war raadiyaha kulmiye isin sheegasan yo mayka dhegansadi jiray ambaareena adow kaama celiso geeka agaasimije raadiyo kulmiye agaasimije yalee ilaahay hadduu kuu roon yahay waan ambaaraynaynaa falkaas warwarayaasha ahlusuna xirxiri jirtay midkaan galmudug baa xirtay mise ayagaa xiray war maxkamad milatariyaa la saaraa layidhi weriyaha meelaan dawladu ka jirin miyaa milatari joogaa warnimayo aniga waan yaabanahay maamul goboleedyada Geedland mid waliba maxkamad milatari ayaa xukun fulisay bay leeyihiin marka milatari iyo maamul goboleed maxaa iska galay warnimayo jenaraal dhumaal baan xal dhageystay oo ka hadlay wiilkii iyo gabadhii beriyahan bulshadu hadal haysay wuxuu yidhi arrintaa waa la siyaasadeeyey dhulka ha la dhigo barnaamijkaas dhaqan la'aan reer Soomaaliyeed ma dhismo dhibkii dhacay ha la xalliyo markaas kadibaa guur laga hadli karaa war dhuumaal wuxuu yidhi wixii dhacay markii la dhaqo kadib gabadhan godob reeb baa loo bixin karaa mid kalena waa lagu darin karaa aryaa dhuumaal wuxuu yidhi anaa dhegansadhe maqla gabartaanya igaarkaan iska daba rooraya aroos qaranaa loo dhigaa la leeyahay horta qarankaxay u qabteen labadii qoysoy ka dhasheenayba fidna u soo hooyeene war heesa dhegansadii eeb inyaable may lahayd heesta kasaasana ebermiya dadkii joogay ebermiya aryaa saas mahani aniga iga dheganso ewermiya dadkii joogi ewermiya warnimayo waayaabe heestan awwaan ka saweeyey haween wanaagsan waa nii salaami warna dhegansadana miyaw niin boobtana awad wasiirka arrimaha dibadda qaramada midoobe ku qudbeey kuraasti oo ewer ewaan qudbeey horta ha ugafan cabad maahe waa cawad kuraastuna ewer maahayna eberay ahayd ee khudbadiisa ma dhegansadeen war xitaa madaxda kala tagay nimanyahow khudbadda way duuban tahay keedka qaramada midoobeyna ku jirtaa wareerna madaxweynuhu hadduu tegi lahaa waa la dhegaysan lahaa maxaa wasiir afrikaano soomaaliya weliba laga dhegaysanaya madawiinaga meelo kale barhoora ka soo jiray qaramada midoobey indiidi aryaadhaha war ma haysiine xisbigii daljir waa la kala diray laakiin waxaan maqlay xisbi weyn oo mucaaradku ku midaysan yihiin in la sameeyhaayo war mucaarad ma taqaanida mucaarad ma midoobo nagaa weligeen ahaan jirno mucaaradkaan naqaan dhegayso aad ku dheefta mugga daljir iyoonay duurjir weliba midowno war xisbigii weynaa ilaaha weynaya nabad iyo nolol bay ku biri rabaan war baarlamaankii heer hoosaadkiisii muran xun baa ka taagan baa la yidhi shalana sakariyoo gebiyey wuxuu yidhi nin dharbaxay quuraad dhugsaday dhaqayadeed maalye
dhashaaday sugtaa xaajadaa dhowrataa ebede marka wuxuu yidhi waxaan la soo dhoodhoobay dad baa ku danaysanaya dan guud maaha xeerka ba marka xildhibaanadu mooshin ka keenayaan madaxweynaha waxay ku hor saxiixayaan xogayaha guud ee golaha shacabka xeerka ca'a wuxuu leeyahay kaa yeeli mayno cad wartaad ka boodayeen waxay qoraysaa nin tuurlii siduu u seexda asagaa yaqaan ta'da naftirkeer xeer hoosaadkeera wuxuu dhigaa ninkii tuurle kii tulux lahay tala wadaagaane wareedha xeer hoosaadka ma sidii dastuurkii baa la qabya tiri laayahay isagana war guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ma ertay gabroowi wal afduubadoo haya erti huteelo gabdhalo kale dhuumadaun wal dhisdiya erti war maanta wiil bajaaja lagu afduubtayaa la qabtay nimanyo ayaantaana ilmaha yaryar iyo gabdhaha waa la afduubtaa yaa afduuba awalay dalka haysatee xaa dheeraada war canug yarow ahaa midka hooyadiis isbitaalka uga dhuumatay maalintay dhashay maalintii ka dambaysay u gambiday awalowga gambis ku dhashaan u filaa cunugaas warnimayo somalilan war yaablaha ka soo yeeray nooga yaabi waxay yidhaahdeen ra'iisul wasaare abi axmed hanna dhexdhexaadiyo annaga iyo soomaaliya gaalka hawshay koohay gurbi ku urday waa dheegi jari yaa ma etoobiya beriga hana faragelisay la yimideen war maamul goboleedyadu weligood bay etoobiya u soo ordi jireen war lankii guntiisi gaaljaydiida gaali waalsadee waa leeri war guddoomiyaha gobolka banaadir injineer iisow wuxuu yidhahday xuduudda muqdisho waa inay noqotaa afgooy iyo balcad war jidka soddonka leebi koogayna ama heganti laabeen yaa degmooyinka muqdisho qaar ka mid ahaanba waaga la tegi karina tanya balcadna shimaal loo gudbay war ninkii xaabada guray miyaada maqale inta qaadi waaye mid kale ku biirsaday aryaa nin ma ahayna taasu habaray ahayd aflagaadada jooji waryaa war insiba mahayna jinnihay wala waryaha iga faadaa jinni iyo wax ka xun ah war ani yeer kortay waryaa waalidha ku cunta dirabtay waryaa deega xun qaade